kulan ay soo qaban qaabiyeen ururka suxufiyiinta Qoraxay Media ayaa waxay ku soo bandhigeen tacadiyo loo geysto shacabka reer Ogaadeniya isla markaasina ay ku dhibaataysan xabsiyada ku yaala dalkaasi Itoobiya. Kulankani maanta ayaa waxay ka soo saareen war-saxaafadeed waxaana ku dhaleeceeyeen qaar ka mid ah saxaafadda afka Soomaaliga ku hadashay ee u adeegta dawladda Itoobiya. war-saxaafadeedkana waxaa akhriyay Maxamed Sheekh Axmed Daawud. ururka suxufiyiinta ee Qoraxay Media waa urur madax bannaan oo aan wax siyaasad ah shaqo ku lahayn, waana urur ka howlgala meelo badan oo adduunka ka mid ah, waxaana ku midoobay wariyayaal badan oo aqoon u leh saxaafadda iyo wariyanimada. waxay leeyihiin maamul iyo agaasimayaal kala jooga dunida dacaladeeda sida Yurub, Ameerika, Afrika iyo Australia. wuxuuna ururkan yoolkiisu yahay sidii loo kobcin lahaa guud ahaan saxaafadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna saxaafadda Ogaadeniya oo aysan innaba ka jirin wax heer saxaafadeed ah ama wariye madax bannaan oo aan loo ogolayn. sidoo kale sidii loo midayn lahaa si loo helo warbaahin dhexdhexaad ah oo u adeegta ummadda loogana gudbi lahaa kuwa maalin iyo habeenba dhibaatada ku haya ummadda iyaga oo wax khibrad ah aan u lahayn iyo aqoontoona saxaafadda. war-saxaafadeed sida la wada ogyahay waxay saxaafaddu gaar ahaan midda Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay si boonboonin ah uga hadlaysay arrimo ku saabsan shacabka Soomaaliyeed iyo shirkadahooda ganacsiga in loogu ururiyo dawladda Itoobiya dhaqaale iyada oo ay qasab tahay in ay bixiyaan dhaqaalahaas. dhaca ay Itoobiya ku dhacayso shacabka Soomaaliyeed waxay ugu gabanaysaa ama ugu gabatay in ay ka iibsato ama ay ka iibiso saami waxa ay ugu magac dartay biyo xidheenka Itoobiya laga dhisayo. waxay ugu hanjabtay shirkadaha Itoobiya ka shaqeeya haddii ayna iibsanin saamiyada lacageed ee biyo xidheenkaas in aynan jiri doonin ama ayna ka sii shaqayn doonin. waana arrin ku cusub adduunka in la isku qasbo saami in la gato iyo weliba dad aadan xukumin oodan dawlad u ahayn inaad qasabto inay lacag ku siiyaan. waana xaq darro aan geed loogu soo gabanin. taasi waxay ku muujinaysaa in ay dhammaan shacabkii Soomaaliyeed hoos yimaadeen cadowgoodii dhabta ahaa ee Soomaaliyeed. sidoo kalena war-saxaafadeedkan ayaa waxay ku soo jeediyeen baaq ay u dirayeen dhammaanba saxaafadda afka Soomaaliga ku hadasha meel kasta ay ku sugan yihiin inay ka soo xog waramaan dhulka Soomaalida Ogaadeniya kaasoo dhawaan warbaahinta qaarkood ay booqdeen oo ay sheegeen in xabsiyada dadka lagu tacadiyo ay ku sheegeen goobo waxbarasho iyadoona halkaasi ay fadhiyeen hablo lagu soo dhibaateeyay xabsiyadaasi. gabagabadii Qoraxay Media waxay ku booriyeen saxaafadda Soomaalida in ay midoobaan si looga baxo caqabadaha hortaagan saxaafadda loona xoojiyo waxqabadka iyo tayada saxaafadda Soomaalida. waxaana ku dhici kartaa ayay yiraahdeen in la helo wada shaqayn. Amran Xasan Cabdilaahi, Hon Cable TV, magaalada Nairobi.